kow anugu mar walba waxaan doonayaa inaanu caddayno in soomaaliya ay tahay dal nabada, dal qayb ka ah geeska africa, dal wada jirka iyo wada noolaanshaha nabadeed raba mar walba, iyo in aan si khaldan loo turjumin marka ay jiraan dhaqdhaqaaqyo gobolka oo wadamada saaxiibadeen iyo walaalaheen ay samaynayaan. taas anagu hormuud baanu u ahayn, waa qaybna waanu ka nahay, mar walbana waanu ku niyadsannahay walaalahayaga geeska iyo gobolku in gacmaha la isqabsado, dhaqaaluhu isu furmo, wadajirku isu furmo. marka waad ku mahadsan tahay. waxaan filayaa inay taasi ku filan tahay jawaab ah miyay soomaaliya qoonsatay dhaqdhaqaaqyada cusub. maya, taas waxba kama jiraan, marnabana wax kama qabna dareen. xiriirka dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya kadib murankii badda ah halkuu ku dambeeye, maxaana idin qabsoomay? waa kii dowladda kenya ay tiri waxaad idinka doonaynaa jawaab cad. soomaaliya iyo kenya waa laba dal oo walaala ah, oo jaar ah, xiriir qoto dheer oo saaxiibtinimo iyo walaalnimo iyo bulsho iyo dhaqan uu ka dhexeeyey, iyo isdhexgal umadeed. xiriirkaasi waa jiraa, waana sidiisii, wax isbedelayna ma jirto. arrinta badda oo ay dad mararka qaar soo hadal qaadaan, mowqifka dowladda federaalka waxa weeye soomaaliya in dacwadaasi ay maadaama aynu ummadaha adduunka ka mid nahay, maxkamadda caalamiga ah cadaaladuna shidada loo yagleelay ay tahay in si nabada haddii dowladuhu wax isku qabtaan loogu kala baxo. arrintaas dacwadda maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ayaa gacanta ku haysa, waanuna ka dhur sugaynaa waxa ay ku dhammaato, laakiin naga leexin mayso iskaashiga iyo walaaltinimada iyo saaxiibtinimada dowladda soomaaliya iyo kenya iyo labada shacab mar walba ay leeyihiin. arrintaa aynu u dayno waxa ay maxkamaddu ku go'aamiso. waa tahay, laakiinse soo tii jirtay ma aha in diblomaasiyadda labada dal aysan si wanaagsan ahayn, oo xilli hataa safiirada la kala qaatay oo loo kala diray in maaragtay dowladahooda ay tashi u aadaan. marka arrintii ma suura gashay oo safiirka soomaaliya weli dalka kenya dib ugu soo laabtay? arrintaas waxaan filayaa in aad hore uga warqabtay. annaga nagamay bilaabmin, dalkaan walaalnahayn nahay oo kenya ayaa ay ka bilaabantay. waa tii anagu sharaxaad aan ka bixinay milgaha diblomaasiyadeed ku salaysan in wixii ku saabsan arrimaha dacwadda baddu uu yahay in maxkamadda caalamiga ah laga dhursugo. wadahadal iyo wada sheekaysi iyo saaxiibtinimada labada dal ka dhexaysaana mar walba waa halkeeda. mana aha in loo arko yacni fikirkaasaa taa lagu dugaaday, waa lagu kala guuray, macnaheedu ma aha. laakiin waxaanu mar walba qabnaa dhaqdhaqaaqyada mararka qaar noocaasihi waxaad moodaa inay dadka soomaalida xasuusinayaan heestii ahayd africoy dayac. taa anagu waxaanu qabnaa walaaltinimada soomaalida iyo dowladaha jaar inuu yahay saldhig mudguraana, nabadna ay wax walba aasaas u tahay. mowqifkaanu ka taagnayn qoraalkaasna waa ku soo dirnay oo waataanu ka jawaabnay. waxaan filaya inaanay b b c ku cusbayn in dhammaanshaha dhul badeed ee xuduudeed ee soomaaliyana uu yahay kaa muranka dacwadda ku saabsan ay ka garanayso maxkamadda caalamiga. xaaladda amniga soomaaliya waa tan soo noqnoqonayso qaraxyada muqdisho ka jira, ciidamo fara badanna waddooyinka way dhooban yihiin. ilaa iyo hadda maxaad ka qabateen xaaladda amniga? amniga waxyaabo badan baa ka qabsoomay. waxaanu samaynay qorshaha amniga qaranka oo 4 qaybood oo waaweyn ka kooban. waxaana hubaal ah, runna ah, in kooxaha nabaddiidka ah awoodooda ay aada u weeqantay. maantana ayna jirin meel waxaa la yidhaahdo conventional war, yacni dagaal abaabulan oo ay meel soo hujuumaan oo ay ku qaadaan aanay samayn kara haynin. markii ay wiiqimeenna isku dayeen si nafla caari ah inay magaalooyinka usoo galaan. amniga waxyaabo badan baa laga qabtay. kow, diyaarinta ciidanka qaranka soomaaliyeed iyo in la og yahay, suganna yahay tirakoobka guud ee ciidanka qaranka, in la garanayo awoodda iyo diyaargarowga aanu haysano, iyo in meel walba loogu diido harsiga iyo inay gabood ka dhigtaan loogu soo hagaagi karo kooxaha nabaddiidka ahi. laakiin adkeynta amnigu meel fiican bay maraysaa.